bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal ku soo dhowaada barnaamij ku saabsan ballibiyood ballaadhan oo laga hirgeliyey deegaanka Cadaroosh. hay-adda sunna al khayriya ayaa ballibiyood ka hirgelisay deegaanka Cadaroosh isla markaasina ku wareejisay guddida horumarinta Hoodaale. munaasabadda furitaanka ballibiyoodkan ayaa waxaa ka hadlay xubno ka tirsan guddida horumarinta Hoodaale iyo odayaasha deegaanka Cadaroosh isla markaasina waxa iyaguna halkaasi mahadnaq ballaadhan ka jeediyay dadka degan deegaanka Cadaroosh. hadalladina waxay u bilaabmeen sida tan. waxaan furaynaa mashruucii balliga ama daamka weyn ee Cadaroosh oo ay runtii maalgelisay hay'adda sunna khayr allah siye hay'adda sunna al khayriya oo markii ay markaa mashruuca soo qaaday noo timi oo tiri waxa markaa halkaanu halkeeba ugu haboonayaanu dhignaa marka annaguna markaanu diraasaynay baahihii kala duwanaa waxaanu isla garanay haddaan guddida horumarin waxaanu u garanay in mashruuca laga fuliyo tuulada Cadaroosh oo waxa weeyaan daamka lagaga dhiso daamkii Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala mahadle si wanaagsan buu inoogu dhamaaday. Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu inoo buuxiyo oo waxa weeyaan maqsadkii loo dhisay in dadku ka cabaan oo si waqaf dadku ay uga cabaan oo dadka oo dhami waxa la dad iyo dunyaba waxa wixii beer qoyan leeyahay ka cabaan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala maqsadka inuu inoo suuro geliyo oo biyihina inoo buuxiyo yani waxa weeyaan isaga hayay inoo keeno ayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajaynaynaa. mar kale iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqaynaa cid kasta oo gacan ku lahayd sidii u fuli lahaa mashruucan oo ugu horeyso waxaan markaa hay'adda sunne waxaan jeclahay inaan wadaha ku bilaabo inaan marka u horeyso ku soo dhaweeyo gudoomiyaha tuulada Cadaroosh Faarax Xasan si uu kelmadda mahadnaqa iyo waxaan markaa qiimuhu ugu fadhiyo deegaankan balligan inooga warramo. bismillaahi raxmaani raxiim marka hore ilaahay baa mahad leh ilaaha iskugu keenay halkan inoona suuro geliyey arrimadeena inaynu qabsano ilaahay baa saa mahad leh. waxaa kaloo mudnaan leh hay'adda al khayriya iyo guddida horumarinta Hoodaale ayaa mahad leh ayaa iyaguna mudnaan leh. sidoo kale ballaygan waa ballay aad iyo aad u ballaaran deeqdaana waanu idinka guddoonnay haddii aad tihiin wada socodka guddida iyo hay'adda sunna al khayriya. ilaahay baa mahad leh waxaananu idinku ducaynaynaa in aad halkaa horumarkiina iyo arrimadiina ka sii wadaan. sidoo kale ballaygani ahmiyad weyn buu ku fadhiyaa waxa weeye waa meeshu waa oomane waana daam aad u ballaaran sidaa adigu tabarrucay hay'ad ugu tabarrucday guddiduna wala garatay sidaa awgeed annana sidaa howlgalkiisa iyo intii cabtabaanana dayactir inaan ku sameynaan u ballan qaadayna inuu hagaajino oon dayactir haddii alla inoo idmo sidii loogu talagalay ballay waa ballay waqfiya ummadda oo dhan buu ka dhaxeeyaa halkaa uu ku yaalaa dee dheeraad bay u leedahay laakiin ummadda oo dhan buu ka dhaxeeyaa. mar labaad iyo mar saddexaadba mahadnaq baanu idinka celinaynaa ilaahay baana mahad leh. arrinkaasi maanta abaarahaana waxaanu ilaahaynu ka rajaynaynaa in ilaahay naga soo jebiyo. maanta dee shirkeenna waad arkaysaana waa shir dee aad baynu tiradeena waynu sarkaynaa sidaasina abaarahaa leh sidaa awgeed idinkuna waad noo soo ducaynaysaan waananu idinku hambaliyaynaynaa idinkuna sawatiyeynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha hay'adda sunna al khayriya Sheekh Xasan si uu inooga warramo talaabooyinkii iyo mashruucani siduu u bilaabmay iyo ilaa siduu ku soo gabagaboobay talaabooyinkii ka soo mareen ku soo dhaw Sheekh Xasan. alxamdulillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah وعلى آله وصحبه وسلم guddida sharafta leh
hoodaale gudoomiyaha xogayaha iyo acdaada guddida gudoomiyaha Cabdiroosh iyo dhammaan odayaasha sharafta leh ee deegaankan Cabdiroosh barakaysan dadka kale marti sharafta nagala hawl galay waxaan dhamaanteed ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aniga ku hadlaya maamulka hay'adda samafalka ee Sunna al-Khayriyya ama Sunna Charity Organization waxaan runtii farxad weyn maanta noo ah inaanu furo dhaamkani dhismihiisu ama qodaalkiisu ka hirgalay halkan mantiqadan maanta aynu joognay mantiqada Cabdiroosh oo runtii ah meelaha ugu habboon ee u baahnaa dhaamkan oo kale iyada oo taasi ay sababteeda lahayd guddidan hoodaale oo ka shaqeysa mantiqadahan iyo kuwa la midkaba oo runtii istishaaro iyo talaan ka weydiin halka ugu habboon oo taladoodii ku soo gunaanaday inay halkani tahay meesha dhaamkaasi ugu habboon ama muxtaarka ah munaasibka ah taasoo dhinacyo badan runtii ay ka eegeen oo halkani waa dhul dhoobaya barkadana suurtagalka ma aha ceel hoose iyo biyo hoose in la gaadhaana iyaduna way adag tahay waxaad ogtihiin halka biyo ceel ugu dhowaa meesha loo yaqaano Dhaboolaqo aan u maleynay inay jirto muddo aan ka yarayn 20 kilomitir haddaan ka badnayn iyadoo runtii baraagna aanay suurtagal ka ahayn siyaasadda hay'addan sunnana ay tahay mid ka shaqeysa gobollada Somaliland dhammaantood kana hirgelisa goob kasta wixii ku habboon ceelasha waanu ka qodnaa meesha ku habboon runtii mantiqado kala duwan oo ay ka hirgelisay baa jirta ceelal iyadoo oo mar kasta aanu la xiriirno deegaanka cidda matalaysa hadaadley waanu ka hirgelinay 12 ceel ilaa iyo Boodaale gobollada inta kala duwan ee Somaliland meelaha ku habboon in ceel dhaam laga qodi karo waanu ka hirgelinaa sidoo kale baraag wixii awoodayada tarkiiskaanu saaraa waxa iyaduna aan meesha ka marnay qaybta tacliinta oo ah madrasadaha iyo goobaha cibaadada masaajidada iyo wixii kasta ee kaabi kara bulshada hay'addu waa hay'ad samafal oo koleyba awooday saartaa waxaa dhaamkani sidaad arkaysaan waa dhaam aad u ballaaran oo kolka la eego cabirkiisa labada koone waa 150 mitir oo dhinaca iyo 90 mitir oo dhinaca kolka loo eego mug ahaan waa dhaam aad u weyn muddo bil ka badan buu socday waxaa sida u muuqata uu yahay dhaam aad iyo aad tarkiiska loo saaray oo waqti lagu bixiyay iyadoo aanu kaashanay cid aqoon u laho takhasus u leh oo sidaad arkaysaan kaabadaha iyo qaabka loo shubay iyo ceelka qodidiisaba anaga xirfadayda ma ahayn laakiin cidii muhandisiinta ahayd aqoonteeda ahayd baanu kaashanay waxaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynaynaa inuu noqdo dhaam ummadda anfaca waxaa inaga caawisay guud ahaan oo aynu tamwiilka ay ka heshay hay'addu dalka Imaaraadka Carabiga Sacuudiga ama Sultanka Imaaraadka iyagoo soo marnaya jamciyadda Daarul Birr al-Khayriyya runtii wax badan oo qiimo badan wadankeena ka filisay waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh awalan wa aakhiran waxaanu maanta joognaa waqti gu ahayd oo imika waqtigii guga kolka looga mawsim ahaan haddana xaaladda markaynu aragno dacfi fara badan baa jirto oo ilaa hadda ceelkii waa uu maran yahay oo inaanu biyeysmin deegaanada in fara badan oo ka mid ah Somaliland waxaad moodaa in meel fara badan abaari ka jirto waxaan oran lahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala in xaqiisa u yaacno ilaahay tuugno bariyada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa qani oo dadkiisa u naxariista waxay raaci lahayd dadka deegaanada miyadu inta faraha badan waxa ay si gaara dhibaatada iyaga u taabataa waxaa fariinteenu maanta ay noqonaysaa tii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam markay musiibo timaado wuxuu xusuusin jiray oo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisa in loo yaaco in ilaahay cibaado loola yimaado in ilaahay la baryo in balwadahan iyo waxaan maanta dadkeeni fadhiidiyay laga xoroobo in macaasida miyiga magaalada raadaysay ee tabarrujka iyo xumaanta ay dad badan ay la soo banbaxeen laga xoroobo ilaahayna subxaanahu wa tacaala ta'diib inooga jeedaayo dadka ma dulmiye way nagu yaraa geejinayaa aad iyo aad bay mahadsan guddida hoodaale iyo guddida kale ee deegaanka ay soo abaabushay waanad mahadsantihiin jazaakum allahu khayran wa barakallahu fiikum sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi waxaan imkana ku soo dhaweynayaa xubin guddida kamida oo gudoomiyaha guddida dhaqaalaha
guddi hoosaadka dhaqaalaha guddida horumarinta hoodaale maxamed nuur cabdilaahi diil kusoo dhow. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرلبات وحوي هرت الكربات ده هي عطروشو إن إلهي وافجيه خيرات كاسي وإلهي دكوا هنا بالرب كذا مكون نار كنا أكوا تسيء إلهي يدكوا أنفعه سمين تأييم قبض إيه كنيس توحى كسي مهم سن بريال كأيه كورهينت إذا كان الله يدكوا أنفعه مدة كلامه والله سناده وحي بير محمد بير كيسو قيي هيبه إنه يدك لعبه وناجيده هو دال لفسيد waxay tahay maxaan ku raadayay ujeedadeedu inay waxaan oo dhan ay soo ururiso oo dadka dhexdiisa keento to khayraadka ee maxaan ku raadayay marka ku mahadsan tahay maxaan ku raadayay sunna maxaan ku raadayay charity-geedaasi iyo wixii kale yimaadaba annagu waxaan soo ururinay ee Turkiga ka soo ururino iyo wixii kale dabad ka yimaada iyo wixii kale hay'ad kale ka yimaada inay soodaas u hirgalamaan doonaynaa annagu haday tahay hoodaale ahaan waxaan ku dadaalay inaa ummaddu ay hesho oo u sinaato biyuhuna waa muhiim ilaahay baa quraankiisa ku sheegay wax oo horeeyay isku noolaaysa waa biyahana ilaalis bay u baahan yihiin idinkana mar labaad kadaba annaguna waa soo ducaynaynaa hay'adana ilaahay maxaan ku raadayay jisaayigeeda كسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن واحد كلمة سينا يا أفينك جوديا عاقل علي سودو علي ميجاكوس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد. halkan waa maalin farxadeed oo hawl la qabtay aynu isugu nimid horta ilaahay baa mahad leh ilaaha ina waafajiyay hay'adda Sunna Charity oo dadaal badan dalkaba ka qabatay sida sheekhu sheegay inagana markii ay nagala tashatay waxay dadkooda u hayaan ay doonayaan inay sadaqo ahaan dadka la soo baxay ay gaarsiiyaan cidii ay anfacayso oo dhan aynu u door halkan u door bidnay يعني هيجد هانتا iyo dhulka oo barkad lahayn oo biyo kale oo ceel lahayn aanu eegnay dabadna aanu garanay halka baahida ugu badan taale biyaha ilaaha ina waafajiyay intaas oo kale baa hay'adda Sunna Charity soo wanaagsan baan ugu mahadnaqaynaa oo wax qabadkeeda ay keentay ay gudida kala tashatay ay tiri halkee ku haboon aan biyaha uga sameynaa aad baan ugu mahadnaqaynaa aan ugu hambalyeynaa anaguna waxaan ugu door bidnay halkan waa hayjid meeshu ma laha biyo ceel buurley maaha oo barkad lagama samayn karo idna ballaygan inuu anfacayo dadka baanu anaguna sahankeeda lahayn run ahaantii odayaasha beesha ama halka degrina si wanaagsan bay arrintan noola qaadatay u soo dhaweysay ilaahay mahadii balligii maanta waa qodan yahay waxaynu la sugaynaa waa deeqdii badnayd ee ilaahay inoo hayay oo ina dul taagan oo maanta insha Allah ilaahay aan saa ka baryayno inuu inoo buuxiyo ayuunba inoo hadhsan alxamdulillaah rabbil caalamiin mashruucaasi wuu fulay gudida hoodaalana wax qabadkeedu waxa weeye inay waxa hay'adaha khayriga iyo wixii ay dadka hesho iyo cidii wax la baxayso dhanba ay uga faa'iideyso bulshada baahan oo ay xoogooda iyo waqtigooda ugu tabarucaan iyaguna inay arrinta qorsheeyaan oo ay habeeyaan hay'adaha kalena sida rag badan oo odayaashii baa sheegeen waanu ku gubaabinaynaa inay arrinta nagala soo xiriiraan cidii hawlqabad noocaas haysaaba kulli hadalkayga sii badin maayo waxaan u mahadnaqayaa hay'adda Sunna Charity waxaan ka codsanaynaa kulli inay waxyaalo badan oo kale inoo hayaana ay bulshada ugu deeqi doonaan anaguna qorsheyn doono inuu habayn doono meelaha ku haboon assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad buu mahadsan yahay عاقل علي ميجاج runtii mashaariicdu aan noo qorshaysan cid kastaba aan la kaashanay ama wixii tol laga soo ururiyay ha noqoto
ama wixii hay'ado kale ay deegaan ahaan inoogu deeqaan ha noqoto mashaariic badan baa insha allahu tacaala noo qorshaysan sanadku intaanu dhammaan inaanu fulino iyo marka iyo sanadaha soo xigaba hadday noqoto xagga biyaha hadday noqoto waxbarashada hadday noqoto caafimaadka hadday noqoto baahiyaha deegaanadoo dhan waanu soo wada marray runtii deegaan walba wixii uu cabashadiisa ugu weyn ahayd baanu abaari doonaa marka insha allahu tacaala waxaanu ka rajeynaynaa cid kasta oo waxa weeyaan doonaysa inay wax ka qabato inaanu annaguna talada ugu habboon ee aanu dadaalka ku bixinay oo baahiyahaanu soo ururinay iyo meel deegaan walba baahidiisa ugu weyn aanu rikoodhka ku hayno inay nagala soo xidhiidhaan annaguna insha allahu tacaala taanu u darbana oonu u diyaarsannahay waxaan guud ahaan inoo soo gebagabayn doona guddoomiyaha guddida hoodaale xaaji maxamuud qaalib cali kusoo dhow bismillah bismillahi raxmaan raxiim dhammaan odayaasha reer Caydaroosh iyo dhammaan guddida hoodaale hay'adda Al-Sunna Charity dhammaantiinba waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan halay looma hadlo hadalkii hoteebaa la dhameeyay anuu soo gudaanadayaa waxaan la dardaarmayaa reer Caydaroosh balliga waa kaas waa dhammaystiray daruurtii wajid joogtaa ilaashiga iyo wixii idinka maaragtay qabyaha ku soo baxaan oo markay biyuhu yimaadaan ilaalinteeda iyo hagaajinteeda idinka la idinka fadhiyaa hawlo arrin amba hawl amba wax waa la dhisi karaa laakiin marka dambe waa si loo ilaaliyo manaafac u yeelata marka dardaarankaygu waxa weeye ummadda u ilaaliya idinkuna ilaashada meesha balliga ilaashada oo haddii meel uu biyo ka jabaan cid kale ha ka sugina gacan idinka siisa wixii aad qabsan karaysaan inaad qabsataan bal idinka baahan yahay inaad hay'adda lacagta keentay nagu soo sintay haddaanu nahay guddida hoodaale tiri meeshii ay ku habboon noo doora aanu dooray markaanu eegnay gees walba ka eegnay baahida goobta ka jirta way maadsan tahay iyaga iyo wixii la midana waxaanu ugu baaqaynaa inay saab la soo xidhiidhaan guddida si aanu ugu jahayno halka ku habboon marka hadalkayga waxaan kusoo gudaanadayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkaasi gaarka ahaa waa filim qaadistii rafiiq rashiid iyo mustafa dheereeye oo idile nabadgelyo